gurmadkan biyadhaaminta ayaa waxaa qaar ka mid ah culimadiinka gobolka Mudug oo gacan ka helaya qurbajoog Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Maalmo ee dalka Sweden waxa ay gaarsiiyeen qaar ka mid ah qoysaska ay saameeyeen abaaraha iyo biyo la'aanta ka taagan gobolka Mudug kuwaas oo ku sugnaa deegaano dhowr ah oo ku yaala dhanka koonfur galbeed ee gobolka Mudug. Sheekh Bashiir Sheekh Ahmed Ali oo kamid ah culimadiinka biyaha gaarsiiyay qoysaska xoolo dhaqatada ayaa ka warbixiyay dadka soo dhiibay iyo goobaha ay ka sameeyeen gurmadkan biyadhaaminta. Laakiin waxaan rabaa inaan xuso dadka walaalaheena oo soo gaarsiiyay sadaqadan yarta uguna talagalay dadka walaalahooda oo tabaalaysan ee reer Galmudug oo jooga daafaha maaragtay gobolka Mudug jooga gaar ahaan dhinacaan maaragtay saxbul iyo kalmeegaag iyo hadii la ku rooyo beelaha u daran labadheere waxa soo gaarsiiyay sadaqadaas oo soo gaarsiiyay walaalihiina ee Galmudug oo Sweden kamid ah ayaa soo gaarsiiyay 2200 oo maaragtay loogu talagalay biyadhaamis intaas ay ahaayeen annaguna waxaan rabnaa inaan xooggeena ugu tabarucno ku gaarsiino dadka walaalaha sida arkaysiin dadku iska dhibaataysan yihiin hawlahan wax badan ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin biyaha la gaarsiiyo koow nolosha ugu horeyso la gaarsiiyo waa biyaha marka walaalahaas way maasan yihiin soo gaarsiiya annaguna sida ugu talagaleen ayaan u gaarsiinaynaa maantana aan la joognaa biyo dhaamiskii baa bilowday. qaar ka mid ah qoysaska xoolo dhaqatada ee loo sameeyay gurmadkan biyadhaaminta ayaa u sheegay warbaahinta qaranka in ay haysato dhibaatooyin dhanka nolosha ayna u baahan yihiin gurmad intaan ka badan in loo sameeyo iyagoo sidoo kale u mahad celiyay intii uu soo gurmatay. magacaygu Khaliif Aadan Cali wey waxaan mahad ka celinaynaa walaalaha jaaniyadaha oo reer Maalmo oo na soo gaarsiiyay sadaqada walaalnimada iyo kalgacayl kale waxaan uga baahanahay intoo kale iyo intoo kale khayr hasiiyo annagana hadii Ilaahay ku roon yahay dal taabacaysan baan nahay beeshaas baan joognaa deeqina lagu soo dhibana hadda caaladkiisa maanta noo yimid hadii Ilaahay ku rooyo dad iyo duunyaba hadii Alla ku roon yahay dadkii waa idkan yahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala deeq hada siiyo walaalaheena deeq ay noogu soo deeqayna Ilaahay annaha ayagana khayr Allah si annaga aragnaa nolol wanaagsan walaalaheena baahi weyn inta ka sii badan baan u qabnaa waxa loo baahanahay wixii ama raashin ama baahi kale oo aan qabno xoolo inta aragtay in la mid weeye waana soo gaari waayeen inta aragtay maalinta kale ka war wax xoolaha abaarada intee baqtiimiya jira way badan yihiin xoolo fara badan way qaarna waa aragtay qaarna hadda bari ay yihiin badmaanagii. Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo.